Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub subscribe nagu caawi, sidoo kale gambalelkan furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno. Videogan waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan Gmail-keena ugu masax lahayn password-ka. Dabcan waxaa dhici karto in aad Gmail aad isticmaalaysay kadibna aad markii aad sameynaysay password-ka aad save gareysay haddii ahaa lahayd dhanka mobilka ama dhanka computer-kaba. marka waxaa dhici karto in muddo kadib password-kaas aad ilowdid. so haddii aad ilowdid waxaa jira waddo fudud ee aad ku masixi kartid in Gmail-ka password-kiisa. ugu horreyn waxaan soo kicinaynaa browser-ka, kadib meeshaan Gmail-ka ayaan kalgaleynaa. Gmail markaad soo kicisid automatically halkan ayuu na keenay. saan arkayna halkan meeshaan waxaa ku qoran ciwaankii aan ku isticmaalinay inkastoo aan sync up tahnay. haddii aan sync up dhahi lahayn automatically wuxuu noo soo fur lahaa in account-keena, balse aniga ayaan ugu talgalnay in aan kasoo baxno. sidoo kale haddii oo in computer-kaaga aadan ku isticmaali jirin in Gmail, ugu horreyn wuxuu ku weydiinayaa Gmail-kaaga magaciisa, kadibna password-ka ayuu ku weydiinayaa. marka hadeertaan waxaa noo fududaaday qorista Gmail-ka. automatically Gmail-kana aan kala garayno. Gmail-ka markaan soo dooranay automatically wuxuuna keenay meeshii aan ku qoran lahayn password-ka. xataa saad arkaysid password-ku wuu save garaysan yahay, balse ma rabno inaan ku furno. waxaan leenahay waxaan iloobnay ama aanan haynin password-ka. forgot password ayaan leenahay. forgot password markaad dhahdid in wuxuu ku leeyahay ugu horreyn in waxaad isku daydaa uu ku leeyahay password-kii ugu dambeeyay marka aad isticmaali jirtay midkaad xasuustid midka ugu dambeeyay kaliya ayuu ku leeyahay. haddii password-kaas aad gelino, for example waxaa jiray password oo aan bedelay, marka password-kaas ayaan gelinaynaa. kadib wuxuuna dhahay aan aragno. okay, password-kii aan ka bedelay ayaa halkaan ku qoray. kadib waxaan leenahay next. next markaan dhahnay password-kaas wuxuu ahaa mid aniga aan bedelnay waa hore, balse wuxuu ogyahay in password-kaas aniga aan gelinay. marka wuxuu sameeyey maadaama aan isticmaalo mobilka in Galaxy J7 Prime. J7-kaas ayuu wuxuu u dirayaa koodkaas oo ku xaqiijinaya in account-kaas la soo galay. marka haddii aad dhahdid qofka soo galayo waa aniga, yes haddaan dhahno hadeertaan automatically qofka soo galayo waxaa u fududaanaysa inuu password-kaas jibiyo. balse hadduu dhaho in no, waxaa adkaanaysa qofka ka isticmaalayo computer-ka inaysan fududaanaynin oo jibiyo. marka had iyo jeer waxaan kula talin lahaa haddii fariinkaaga timaada Google-ka oo sidan ay tahay, waxaad ogaataa in qof isku daya inuu Gmail-kaaga furo haddii ahaa lahayd password qaldan ama wuxuu doono ha geliyo. muhiim waxaa ah in adiga fariin kuu timaado. haddii qofkaas adiga aad tahay, yes ayaa leedahay, balse haddaa adiga aadan ahayn, no ayaa dhehaysaa. had iyo jeer waxaad fiirisaa in fariinta kuu timaada aad fiiro gaar aad u fiirisid. kadib waxaan leenahay no markaan dhahno in wuxuu leeyahay in inta automatically wuxuu ogaanayaa in la soo diiday. wuxuu leeyahay saan arkayno in meeshaan waxaa ku qoran in you tapped no on the notification, yani no ayaa reexday bixinta aan kugu dirnay mobilka. marka waxaad leedahay try again ayaa leedahay mar labaad. marka forgot ayaan leenahay. forgot markaan dhahno in wuxuu leeyahay password-kaada geli. marka password mar rabno waxaan leenahay try another way. try another way markaad dhacdid kor iyo hoos wuxuu kuu soo dirayaa notification oo u diri doonaa in mobilkaaga. marka in case haddii aan dhahna yes, automatically saan hore u sheegay wuxuu sameynayaa in oo Gmail-ka aan u ogolaano in meeshaas laga soo edit gareeyo. marka hadeertaan haddii aniga aan dhahna try another way maxaa dhici doono. try another way markaad dhahdid in waxaa loogu talagalay try another way inaad u isticmaashid in case mobile adiga aad ku isticmaalaysay ayaa dhici karta inuu ka ciladaysan yahay ama aadan haysanin ama waa hore kugu dambeysay. marka waxaa fiican try another way inaad dhahdid, kadibna waxaad arkaysaa in uu kusoo bandhigayo mobile hore lagu active gareeyay ama Gmail kale oo adiga aad ku active gareysay ayuu dhankan kasoo bandhigayaa. wuxuu leeyahay in Gmail-ka ama numberkaas ayaan kood u diri doonaa. haddii aad fiirisid numberka idil waa la qariyay, kaliya waxaa la sameeyey in labada
xaraf ugu dambeeya ayaa lasoo bandhigay. Gmailkana markii adiga lagula wadaagayo ama uu kusoo bandhigayo wuxuu sameynayaa Gmail kaas qayb ka mid ah un kaliya inuu kusoo bandhigo oo ku leeyahay in Gmailkan ayaan fariin u direynaa. Marka haddii numberkan aad haysid waxaa leedahay in isoo wac waa dhihi kartaa ama in text ugu dir. marka ka waran haddii numberkan aadan haynin oo qof saaxiibkaaga kuu sameeyey, still waxaa leedahay I don't have my phone ayaa dhihi kartaa. I don't have my phone markaad aadid wuxuu ku leeyahay in waxaad gelisaa email aan ku sameyno recovery. Emailka recovery lagu sameynayo waxay tahay waxyaalo ku weydii doonaa oo emailkaas oo kuu soo dirayo. marka mar alla markii aad u dirtid in emailkaas aad u dirtay ayaad furaysaa fariimahaas, balse qofka haddii oo in mobilekii ama numberkiiba oo ku guuleysan waayo kuma guuleysanayo optionkan ugu dambeeya. marka waxaan leenahay aan kasoo laabano mar labaad, try another way ayaan leenahay. sidoo kale try halkaan aan dhahno okay, emailkii halkaan aan gelino next ayaan leenahay. next markaan dhahno waxaan leenahay passwordka haddii aan gelin ama haddii aan intaan reexno waan aragnay waa isku mid. marka meel un aan reexno inta ayaan waxaan gelinayaa password qaldan, kadib waxaan leenahay next. next markaad aadid sidii hore wuxuu diray notification. marka notificationka hadeertaan waxaan leenahay yes haddaan dhahnay maxaa dhici doono, wuxuu leeyahay password cusub geli. micnaheeda waxay tahay haddii qof oo doonayo in oo access gareeyo in gmailkaaga oo adigana durbadeedaba fariinta aadan akhrinin oo yes iskaga reexday, waxaa dhici doonto in qofkaas automatically in gmailkaas oo kaa jibiyo sidoo kalena kala wareego gmailkaaga. balse hadeertaa maadaama aniga aan ugu talagalnay inaan jibino waxaan sameyneynaa in aan password cusub halkan aan gelino ama aysan ahayn aan skip aan dhahno. haddii aan dhahno password cusub halkan geli, waxaan sameyneynaa qaybtan kore iyo qaybtan hooseba passwordka ayaan ku qoreynaa. mar alla markii aad passwordka aad ku qoratid waxaad leedahay save password. markaan dhahnay automatically wuxuu noo soo bandhigay inaan ku guuleysanay passwordka. saan arkayna hadeertaan waxaan awood u yeelanay in aan passwordkaas aan jibino si fudud. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkana. videogeena halkan ayuu ka eg yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.